waxaan ogaataa il alla dartii u ooyday naar ma gasho naga Soomaalidu waxaan u haysanaa bari baan shaab dalxo xajkan aadnay qofku marka xaramka Ilaahay haybad buu leeyahay qofku markuu indhaha ku dhufto inta badan wuu ilmeeyaa marka waxaan iri nin nala socdaa waxaan ku iri marka la tawaafayay iyo sacyigi ma ooyday si sheekhu meesha anu ka waxaan xasuustaa waqti maxaadarooyin inta la qabto oo dhalinyaradu isu wada yimaadaan اللي ترى عاوة وحان براكتس قرينينا أما أن عاوة أن طبقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. وحافر حد وين ومدى الصوماليات ميل والبي أدونك أي كتشو غامبا عاوة قربت ما أنت قف والبصاعد أتهيبا قرب كي يمدك إنو فليو شيخنا الفاضل شيخ عبد الرزاق حاشي أو إن بدن أو إذن كذن كمذا أتقانان أم أي قانان بالشدة الصومالية شيخ وسفر وأنا وحنا وصل بغضي هويجيجا ودن كتركيا عاصمة ديسا أنقرة طبعا سؤالود بان شيخ أنو أوقف في سن دون ناس السريعة مركب وحنا ربنا عنده شيخ رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود أبو طلحة هذه أنا وفرح سنة هي maanta inaan ku soo booqdo oo is aragno oo aan wada fadhino Soomaalida meel ay joogtaanba iyo dadka muslimiinta oo waa in salaamaya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anigo naa'ib idinka aniga ka ajiibaya idinkuna markay cajalada idin soo gaadhaad ka ajiibi doontaan su'aasha koobaad. Sheikh al-Mubarak qofka muslimka ah qaabka ugu fiican ee uu noloshiisa u cusboonaysiin karo mar walba. Bismillah. horta waxaad ogaataan anoo naftayda xasuusinaya mar walba waxa la yiraahdaa cusboonaysiintu waa qofku in uu daalka iyo waxa la yiraahdaa malalka inuu ka baxo oo uu nolosha rootiinka ka bixiyo rootiinka waxa la waxyaabaha joogtada ah qaabka ay ku socotaa oo nolol cusub oo qurxoon uu bilaabo mar walba adduunka dhan wuxuu ku socdaa cusboonaysiintaas waa aragteen رب المشرقين ورب المغربين قرحدا دعيسا way soo baxaysaa dayax baa soo baxaya oo dhacaya seasonka isbedelka ku imaanaya guba bilaabanaya xagaa baa imaanaya diraac baa imaanaysa dayr baa imaanaysa waxa soo dhan waa wax tusaale u ah in noloshu ayna routine noqonin ee la cusboonaysiiyo cusboonaysiinta waxa miftaax u ah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي قفك ما بدله أمد إلهي ما بدله إلى قفك اسبدله إلى أذو عاد هذا بدشه ولقن كاجا عاد بدشه وعاد باللوضو لقن عصب ما بدلك كتناش هذا وحنا هنا ويا أدقتها لكن واحد قالت قريها سي إيزي وجورها مين عادات لقن كجوري كريم نعم ما شاء الله ورنتي وموضوع دكتين وآد شيء قوي معايا هي لكن وقت ير دلادي من دولية إلى كلمة يراكوبان عن شيخ أوقفيس إنه شيخ المبارك قلن كاسي وشيد الله أبوري مكرافة كان وشيد الله أبوري هدف كإنسان كالله أبوري هدف كإنسان كالله أبوري وين ولي هذا غاية الغايات غاية قدام بيسا وإرضاء الله تعالى إنه إلهي رالي قليه ولذلك وحالي هذا قفك سيدي سبا نولشيسا شاهو طلحة حدوثا أفر أرمود أين هرتي سؤولين ميل مقارو كو مركا أوهر ريسا وإنه قايدة هذا ييول كاغو لم يهي ربي أولا رالي قليه كو الله لابو أذيك النفط هذا إن أد أدداش والحاجة جسو صدح dadka adiga kugu hareeraysan aruurtaada xaaskaaga gurigaaga inaad hagaajiso afar markaas dadka kale iyo wixii soo haray aad u gudbaysaa waxa daliil ah biqowl Allah tabaaraka wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah nabi maxamed lagu leeyahay waxaad ogaataa allah ma ahna alla kala ma jiro qaayada ugu horeysa waa taas maxaa ku xiga wastaghfir li dhanbika adiga naftaada walil mu'minina wal mu'minat باكوحيغا مؤمنين يا مؤمنات كما حكوحيغا والله يتقلب والله يعلم متقلبكم ومثواكم وامورتي هوري ما شاء الله ما شاء الله عيدا كنتني لحاد سوره الذاريات اللي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما شاء الله زمن كريم وزمن الانفتاح دونك هل قريه هل تولى ايو نقطه
maxaad ugu nasteexayn lahayd shabaabka iyo da'yartii dhalinyarada isticmaalsa social media weliba dhinaca khaldan ama xun u isticmaasha? waxaan idinku baraarujinayaa adduunka waxa lagu bedelo oo wax lagu saameeyo ee ugu weyn waa qalabka waqtiga casriga ah ee la isticmaalo. Soomaalida waxay wax ku bedeli jireen gabay, hadal, xikam. maanta wax lagu bedelaa waa social media waxyaabaha ka socda. marka waxa aad isticmaalayso ama qowlkaaga ama qalinkaaga waxaad u adeegsataa wax ilaahay raali gelinaya. waxaad ogaataa kelimad kasta oo dhahdo ama aad qorto ama adiga hoog iyo shalayto kugu noqon ama xujay kugu noqon maanta qiyaamada imma calayka wa imma laka. intaas xasuusinaya aad buu xusuusinaadu qiimo badan weeye. quraanka waa 114 suuradood. quraanka markaad akhriyayso aayaadka aad isleedahay ama hal aayad oo kamid ah noo soo qaado mar walba qalbigaaga raad ku reebto. aayadaha way badan yihiin laakiin aayada mar walba aniga raadka ugu reebta waxa weeye aayadu alle leeyahay wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul maakirin. nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo imagine qiyaas dhalinyaradii Qurayshta ugu xoog badnaa oo ugu dagaalyahansanaa intay isugu wada yimaadeen warma dhiig ka da'ayo oo rabaan inay dilaan qasadkooda uu dhan u yahay ay la soo korfariisteen boo alla wuxuu leeyahay wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka inay ku xiraan aw yaqtuluka ama inay ku dilaan aw yukhrijuka ama inay ku bixiyaan. laakiin maxaa ka dambeeya wa yamkuruna wa yamkuru Allah. waxay xasuusaa mar walba wax kasta oo adduunkan ka dhacaya rabbi yaa maamula. haddaad maanta u jeedid adduunkan iyo caalamkan waxa ka dhacaya waxaa jira boqortooyo ka sarreysa oo umuurta laga maamulo. marka ha murugoonin, hana baqin, dibna ha u noqonin. mar walba waxaad fiirisaa qalinkaas meesha ka imaanaya yaa adduunka lagu maamulaa. aayaddaas waa i cajabisaa markaan akhriyaba. ما شاء الله تبارك الله. لما نحس قبا إلهي وحو قرآن كيسا في سورة البقرة بكشي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عبارة داس بلاغية هذا نشرح ظهير. waxay aayadaasi niyadeyda kusoo degdegaysa markaan fiiriyo dharka aduga aad qabto waa ceebahaaga waxa ugu aqoonta badan ama kuugu dhow. haddii dharkani uu ku xajimeeyo ama uu kugu wasakhoobo ama uu ku dhibaateeyo ma qabi kartid. macnaheedu waxa weeye sida dharkaas aad ugu degayso oo uu kugu qabow yahay oo uu ku asturayo oo aad ugu qanacsan tahay oo dugaalka aad uga dhiganaysid xaaska ku tahay. ما شاء الله تبارك الله. البكاء من خشية الله. ما أنت قلبي واقع لي بل حسوسي أوهين ألا درتي لو أوين فيلك هذا ماضي أما كوح كبديد أدو تاجريسي ولا قعد كذا. waxaan xasuustaa waqti maxaadarooyin inta la qabto oo dhalinyaradu isu wada yimaadaan la dhihi jiray caawa waxaan practice garaynaynaa ama aan caawa aan dabaqaynaa kayfa nabki min khashyati Allah. saan ugu ooyeynaa alla ka cabsi alla darti. waxaadna ogaataa il alla darti u ooyday naar ma gasho. naga Soomaalida waxaan u haysanaa bari baan Sheekh Abu Talha xajkaan aadnay. qofku marka xaramka Ilaahay haybad buu leeyahay. qofku markuu indhaha ku dhufto inta badan wuu ilmeeyaa. marka waxaan iri nin nala socdaa waxaan ku iri marka la tawaafayay iyo sacyigi ma oyday soo sheekhu meesha anigu ka imid ninka rag ma ooyo. maana waa qalbi adag. waxaad ogaataa wallahi tajrubo ka qiimo badan iyo wax ka macaan ma jiro inaad qol intaad kaliga isku xirto oo laba ragcadood aad sujuudo oo rabbiga qalbiga ku soo xaadiriso inaad oydo. ما شاء الله. وعين ضبضة عن قف عرشها هوسك. waxaa kamid ahaa بكت من خشية الله. من قف إلهي مركو لخلوبه أوه الله أكبر. نار ما تعبت كن نافعا. أديات النبي صلى الله عليه وسلم سيدتك أنفع كرا. وكلمة وين لكن وحيابها مهم سن. وحد وقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومدان وقيم بدن قفك ونفع بدن. هذاك أنفعهم للناس. nafciga dadka meel weyn ha ka raadinin. masaajidka markaad soo gasho haddaad kabaha qaadood meel fiican dhigto oo weysada aad nadiifiso oo communityga qofka u baahan turjumaan aad u turjunto oo midka reerka u baahan aad qaado oo gurigiisa gaarsiiso waa nafci.
nafcigu waa darajaad